noocyada nafta ee ay culimada islaamka ee cilmu nafsiga yaqaan ku tilmaameen inuu quraanku u kala qaybshay nafta aadanaha midda koowaad inna an-nafsa la amaaratun bisuu illa ma rahima rabbi naf xumaan farid badan inta badan xumaanta ay dadka fartaa waxa ay jeceshahay wax walba inaad fuliso qalad iyo sax midkii ay doontaba ha ahaadaan waxaasi caajiska iyo dhalaalka adduunkana way ku qurxinaysaa midda labaad walaa uqsimu bin nafsi lawaama naf shalayto badan naftu markii ay fuliso wax aan wanaagsanayn waxa ay gashaa xaalad shalayto ah maxaan sidaas u sameeyay sidaa inaan sameeyo ma ahayn iyo haddaan sidaas samayn lahayn midda saddexaad yaa ayuhan nafsul mudma'innah naf xasiloon waa midda aan raadinayno inaan nafteena ku tarbiyeyno waa naf raaliye ah oo adduun iyo aakhiraba ku nool deganaanshiyo iyo reenreyn waa naf u tarbiyeysan shakhsiyad ahaan qoys ahaan iyo bulsho ahaanba waa nafta iyadoo qanacsan rabbina raalli ka yahay dunidan laga kaxaynayo raxmadda rabbina la gelinayo nafta aadanaha ee xagga culumta maadiga ah culimada ku takhasusay cilmu nafsiga iyo sida ay u kala qaybiyeen waxa ay u kala qaybiyeen ilaa 3 qaybood 1 the relational element qaybta miyirleyda ah 2 the spirited element qaybta ruuxiga ah 3 the appetitive element qaybta hungurilayda ah qaybta ruuxiga ahi waa midda qofka ka dhigaysa geesiga ama dhiirinaanshiyaha siinaysana awoodda inuu wax rabo qaybta miyirlayda ah waa tan u suurtagelinaysa qofka inuu wax sababeeyo ka doodo oo iska aqbalin shaygana u qaato qaab miyirlay ah qaybta hungurilayda ah ama baahida waxay ka kooban tahay rabitaanka shahwo ee nafta sida caruurta raaxada dareenka iyo wixii la mid ah marka culimadu waxa ay yiraahdaan qofku waxa uu nafsiyad ahaan u caafimaad qabi karaa oo uu ku hufnaan karaa markii saddexdaas qaybood ay si wada jira u wada shaqeyn karaan wax sababeyntu waa inay amri kartaa xakameyn kartaa qaybta baahida qaybta ruuxiga ahna waa in ay awoodeeda ruuxiga ay ku caawisaa fulinta amarka iyo hagidda si qaybta baahiyaha loo xakameeyo qaybta baahiyaha ma ahan in la jujoobo balse waa in la qanciyaa baahideeda kaliya inta ku haboon ee wax sababeynteeda ku filan qofka haddii gabi ahaanba la xukumo maskaxda iyo wax sababeynta wuxuu faqiir ka noqonayaa qaybta dareenka insaannimo nin la oran jiray James Mail ayaa sidaas ay ku dhacday dhanka kale inta badan qofka waxa ka adkaada baahiyaha nafta marka si uu rabitaanadaasi u qanciyo iyaga ayuu u dayn inay maamulaan marka qofkii oo dhan iyo cidda ka agdhow waxa u talinaya dareenkiisa baahiyihiisa kala nooca ah markaasuu qofku noqon qof aan miisaanayn oo ishalaaga si loo xakameeyo qaybta hunguriyada waa in maskaxda loo ogolaadaa inay waardiyeyso baahiyaheeda inaysan xadkoodii dhaafin marka qayb walba oo nafta ka mid ahi haddii ay ciyaarto doorkeeda iyadoo la jajoobin waxaa la helayaa jawaab ah qofka maxaa ka dhigi kara heer sare si nafteena aan uga dhigno midda leh tilmaanta ay aayaddu soo sheegtay ee xasiloonida waa inaan noocyada nafteena baranaa kadibna tarbiyeynaa annagoo rabbi raalli ahaanshihiisa raadinayna